بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu ku guda jirnay barnaamijkeenii akhlaaqda iyo nolosha. waxaynu kaga warramaynay falsafada islaamku u sameeyay akhlaaqda iyo sida insaanku inuu u kasbado tahay akhlaaqda wanaagsan. waxaynu ka soo sheekeynay meelaha ugu muhiimsan barnaamijkeenii ugu dambeeyay ee toddobaad. waxaynu kaga warramnay meelaha ugu muhiimsan qofku akhlaaqda ka helo ama uu ka kasbado inay tahay qoyska. marka insha Allah xalqadeennan ama barnaamijkeennan waxaynu dul istaagi doonaa qoyskeenu dul istaagi doonaa. marka dib loogu noqdo taariikhda insaanka, qoysku taariikh weyn buu ku leeyahay insaanka dhexdiisa, waanu la kowsaday. tan iyo markii Nabi Aadan calayhi salaam la abuuray ayuu qoysku ama lamaanaha guriga galeelaa halkaas bay la soo kowsadeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka markuu nabiyullaahi aadam bilowgii la hadlayay wuxuu la hadlay qoys, sidii qoys ayuu ilaahay ula hadlay subxaanahu wa tacaala. waqulnaa yaa aadamu uskun anta wa zawjuka aljanna. aadanoo keliya lama oran jannada deg, adiga iyo waxa la yidhi lamaanaha dega jannada baa la yidhi. nidaamkaasi waa nidaamka qoysku waa nidaam fitri ah ama ula dhasho insaanku oo ku beeran insaanka. ilaahayna wuxuu subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaasu taquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إلهي سبحانه وتعالى وحول الله كعبصدا الله إذا كأبورين نفكلي كدمنا إذن بديي إذن صرفي الله سي كعبصدا. مركا إنسان قالوا كبتي أو كبتا أو كترما ومركا سي أبترسينتي سوى كجرتا وحي كجرتا مركا وحوي وقويسك سأسترتد بإلهي سبحانه وتعالى ومرك ليلي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. إلهي وحوي الله نفكر إذن كابوري إذن كسمي إذن سمي زوجها لما نفته سمي سين نفته أيو دكتو أيو ترنتو أيو نقطه مد مركزي نفقيم كيغو وتوسية هاي أو نقطه. إنسان كنا وحكوت المامان علماء سيسيولوجيغو waxay dhahdeen waxa weeye insaanku waa kaa'in ijtimaaci. waxa weeye waa noole aan kelidii noolaan ee u abuuran inuu si bulsho ah inuu u noolaado u abuuran weeyaan. saas darteed baa culimada taariikhdu waxay dhahdeen usradii ugu horeysay waxa weeyaan usradii nabiyullaahi aadam calayhi salaam. muddo dheer buu ilaahay nooleysay nabiyullaahi aadam. muddadaa dheer nabiyullaahi aadam u noolaa wuxuu baray waxa ka tafiirmay tafiir aad u fara badan. ubad fara badan baa ka tafiirmay, ubadkaana ubad kaloo fara badan ayaa kasii tafiirmay. halkaa ayuu ka yagleelmay oo ka unkamay qaabka qoyska loo sameeyaa, qaabka dadku isku caawiyaan iyo qaabka jiritaanku ay u jiraan. marka nabiyullaahi aadam wuxuu baray fadliga quruxda loo noolaadaa noocay tahay. wuxuu baray jacaylka qoyska dhexdiisa, ubadka la jeclaanayo, ubadka sa loogu naxariisanayo, qaladaadkooga ubadka sa loo saxayo. nabiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa ubadkiisii koobaad ee nolosha adduunka bilaabay kaga soo shaqeeyey. kadib caruurtiisii iyaguna nebiyada noqday waxay iyaguna halkaa kasii wadeen qaabkii uu nabiyullaahi aadam calayhi salaam oo adduunka ugu dul noolaa, fadligii wanaagsanaa ee adduunka in lagu dhaqmo iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ee adduunka guudkiisa in lagu dhaqmo ahayd ayay iyaguna ku noolaayeen. waxaa ku xigay nebiyadii ku xigay oo dhami bartaasay ka bilaabeen. tusaale ahaan nabiyullaahi idriis calayhi salaam oo 300 sannadood in ka badan noolaa say culimada taariikhdu tilmaamaan. isaga laftiisuna wuxuu dhabbada u sii jeexay oo u adkeeyey jiritaanka iyo qiyamka iyo akhlaaqiyaadka uu qoysku ku dhaqmayo ee fiican ayuu sii adkeeyey. sidaas ayuu nabiyullaahi nuux calayhi salaam uu isaguna u yimid. isaguna 950 sannadood had garanaysaa inuu dacwadda waday iyo mujtamacii isaga ka dhashay xataa markii la halaagay
qaladkii sameeyey qaladaad markii sameeyeen markii la halaagay mujtamacii kale oo dib u yagleelay dhammaantood qiyamka iyo akhlaaqda wanaagsan ayaa lagu ayay ku dadaalayeen marka qoysku taariikh weyn ayuu taariikhda insaanka ku nool yahay ummadihii hore ee faraacinada iyo Greekii hore iyo Chineseskii hore dhammaantood marka dib loogu noqdo taariikhdooda la akhriyo qoysku wuxuu u ahaa ahmiyad buu u lahaa si uu markaasi mujtamacu meeluhu ka unkamayo jiritaanku iyo xadaaradu meelaha ka unkamaso si uu u noqdo islaamku diinta islaamku waxay u sameysay qaacida adag bay u sameysay saynu soo tilmaanay saas darteed waxay tiri qoysku waa inuu noqdaa qaacidada uu ku aasaasmaya qaacido wanaagsan ama seeska loo dhigaya waa inuu noqdaa sees wanaagsan waa inuu noqdaa seeskaasi waa in laga ilaaliyaa in uu ku yagleelmo wax negative ah ama markaasi liita dhaqan liita si aanu mustaqbalka aanu markaasi jiritaankiisu aanu u gaaban dabadeedna waxaa loo sameeyey qawaaniin iyo xeerar qabta ayaa loo sameeyey xeerarkaasi hooyada iyo aabbaha ay ku yagleelayaan qoysku waxay u noqonayaan weel ay ku asturnaadaan ubadka halkaa ka dhasha ayay u noqonayaan marka maxaa saaran waalidkii waxaa saaran inuu ka shaqeeyo in akhlaaqda ubadkiisa iyo mujtamaca intuu la nool yahay inuu akhlaaqdiisa toosiyo ayaa saaran ilaahayna subxaanahu watacaala muxuu inagu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaas walxijaara ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala dadka iimaanka laga helayo nafiina iyo ehelkiina ka badbaadiya naarta maxaa lagu gelayaa waxaa lagu gelayaa akhlaaq xumo ayaa naarta lagu gelaya quu anfusakum waahliikum naaran ehelkii weeye ehelkii markaa dee afraaddii kala duwaneed qoysku ka koobnaa aabbiyo hooyada marka la dhaafo dee ubadkii baa imanaya marka ubadkiisa loo badbaadinaya aabbuu badbaadinaya maxay tarbiya saalixa ayuu u sameynaya marka waxaa laga doonayaa waalidku inay caruurtooda ay si wanaagsan u ilaaliyaan akhlaaqda meelaha ay ka kasbanayaan sourceka akhlaaqda ay ka helayaan inay aada uga taxadiraan oo isha ku hayaan waayo qiimo ma leh qoysku oo ninka dadka aan caruurta lahayn ee wada nool inta badan culays bay ku noqotaa nolosha had iyo jeer dareenkaasi uu ku jira inkastuu ilaahay bixiyo haddaba ubadku waa midhaha dee guurka iyo qoys in la yeegleelo midhaha ka dhashaa waa ubadka midhaha ka dhasha hadday beerta midhaha ka soo go'a hadday xumaadaan dee suuqa kuma iibsami karaan marka ilaahay saasuu inoo leeyahay quu anfusakum waahliikum naaran waalidka ammaano saaran weeye inuu ubadkiisa tarbiyadiisa ka shaqeeyo sidaas darteed ayaa 7 sano ugu horeeya ee ilmaha yar u jiro waalidka waxaa la doonayaa xil xoog ah oo badan inuu iska saaro si ilmuhu markuu mujtamaca kale kusoo biiro ay akhlaaqdiisu u fiicnaato marka qoyska in laga shaqeeyo ayaynu aada ugu baahannahay si tarbiyadaynu helano iyo akhlaaqdaynu helanaa ay u sarreyso intaasaan kusoo gabagabeynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qoonmaal islaam io fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam io fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1 5 eber